ودعاء كلية كوسو تشيدي سدقناشها يرساقدا إلهينا وكا أجيب يا تبارك وتعالى دعاء ودعاء قيمة بضن أو قالية وهدية أن يدين صدريه ولا ليال ملك السجوكتام دعاء هضيعن إلهيكم الضيعية تبارك وتعالى إلهي إذا مكيس تبارك وتعالى دعاء wax badan oo maanta ka maqan ay ku soo jiidaysaa dadkeena in badan oo kamida waxay la daala dhacayaan yaraanta dakhliga soo gariya ama irsaaqada haday xataa xoogaa haystaan baraka la'aan ay ka cabanayaan waxaaba laga yaabaa inay shaqaysanayaan si joogto ah oo wax la soo baxayaan laakiin faa'iido badan ma arkaan waxa laga yaabaa dukaan inay furtaan dukaankii ay baraka ka waayaan kadib dukaankii ay ka guuraan meel kala degaan sidaas ay wareersan yihiin dadka qaarkoodna waxa laga yaabaa irsaaqada iyo xoolaha inay uga imaadaan meel ay safileynba ayagoon u daalin ayagoon u dhididin midkaan dhididaya dadaalayana inuu waxba waayo ama baraka la'aan ay ku dhacdo wixii soo galiya ayaa laga yaabaa sidaas ay nolosha u kala duwan mid kale waxaad arkaysaa wax yar ilaahay siiyey laakiin baraka ilaahay ugu daray oo aad barakadiisu u badan tahay oo risqigiisa aad u barakaysan yahay wax kasta ilaahay baa qoray tabaaraka wa tacaala irsaaqadaada allah qoray hase yeeshee dadaal ayaa lagu yidhi ilaahay wuxuu yidhi wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun laakiin asbaab ayaa la rabaa iyo inaad ilaahay talada saaratid tabaaraka wa tacaala inaad dadaashaa la rabaa oo shaqaysatid shaqadaas iyo dadaalkaasna waxaa jira shay kale oo irsaaqadaada sii siyaadinaya oo ah ilaahay inaad u dhowaatid oo aad raalli gelisid salaadu waxa weeye walaalayaal tiirka diinteenna sidoo kale ilaahay wuxuuna amray inaan samayno akhrisano adkaarta gelinka hore gelinka dambe salaada subax markaad tukatid adkaaru sabax akhriso intaada dukaankaada iyo shaqadaada aadi kadaalika casarka markaad tukatid adkaarul masaa iyo adkaartii galabta akhriso istighfaarta badi sababtoo ah istighfaartu waxay furtaa albaabada kaa xiran sidoo kale ha hilmaamin salliga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam barakada ayuu kuu badinayaa salliga nebi maxamed sabab buu u noqonayaa irsaaqadaadu inay kuu barakowdo wax yarba aad haysatide inay kuu bataan oo kuu barakoobaan ayaa salliga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka qayb qaadanaya ka tegin gaar ahaan maalinta jumcaha sidaas ay tahay walaalayaal nebi maxamed ducuu nooga tegay khaas ah oo aan dhahno xilliga ay naga haysato mushkilad nolosheenna ducadaas oo noo dardaarmay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam si aan u dhahno marka irsaaqadu nagu yaraado ama faqriga uu sii siyaado maalin maalmaha ka mida nebi maxamed nin ansaarta ka mida ayuu arkay oo masaajidka jooga weliba waqti aan waqtigii salaada ahayn markaasuu su'aal weydiiyey oo wuxuu yidhi maxaa halka ku fariisiiyey murugana kaa muuqatee sababtu waa maxay wuxuu yidhi rasuulka ilaahay waa murugaysanahay muruga waxay igu haysa dayn aan qabo rasuulka ilaahayow rasuulka wuxuu ku yidhi ma ku baraa oo ma kuu sheegaa hadal haddaad tidhaahdid ilaahay uu kaa qaadayo murugadan dantaadana uu kuu gudayo dayntaana aad iska bixinaysid rasuulka ilaahay uu ii sheego waa midaan u baahnaaye markaasuu nebi maxamed u sheegay ninkaas reer ansaareed ah oo saxaabadiisa ka mid ah annagana wadda ayay noo tahay iyo qof kastoo dhibaatada ay qabsato waana ducada wuxuu yidhi waxaa dhahdaa allaahumma innii acuudu bika min alhammi waalxasani وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قلنك هورنا أخرسو قلنك دمنا أخرسو هل شير يعني هل مر إله وحان كام مغنقري مروغدا يهمغ والولك وحان كلو إله كام مغنقري أو يقصارتا عجسيغ يوهسيغ وحان كلو كام مغنقري فلينمو يبخيلنمو وحان كلو كام مغنقري دين إيغا تنبضتا iyo dadku inay iga adkaadaan ama raggu ama cadowgu inuu iga adkaado oo igu farxo waa kaa magan galay ilaahayow tabaaraka wa tacaala waa ducadan jecelaystay naftayda iyo tiinaba inaan u soo gudbiyo subaxiina hal mar akhriso galabtiina hal mar akhriso markastoo muruga dareentidna akhriso niyadaadana si dhaba uga dhaadhice ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu kaa ajiibayo kuuna soo jawaabayo jazaakumullahu khayran sii faafiya laga yaabee qof murugaysan inaad u dirtid oo ajar weyn aad kasbatid hana hilmaamin badbaada channel inaad ka mid noqotid bahdeeda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu